بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. madaxda ila socota odayaasha ganacsatada haweenka dhalinyarada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii farxad ayay ii tahay inaan caawa halkan hortiinaan soo fariisto oo aan idinla kulmo inkastoo wejiyada horteyda ka muuqda boqolkiiba 60-70 aan garanayo. waan idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad isku soo abaabusheen anigana uu ilaahay i waafajiyey inaan toos halkan u imaado. alxamdulilaah. mahad kadib sida saaxiibaday iga horreeyey tarzan alcadaala iyo wasiir maxamed ay sheegeen dalka xaaladda uu ku jiro sidii hore way ay dhantaa meel fiican ayay maraysaa. taargetkeenna ama hadafkeenna ama goolkeenna waa doorashada marka koowaad, waa doorashada marka labaad, waa doorashada marka saddexaad. waxaa dhinac socda waajibaadkii dowladda ilaa ay dowlad cusub ay ka imaanayso oo ah horumarinta waxqabadka oo ugu horeyso waxbarashada, caafimaadka iyo dhammaan adeegyada asaasiga ah ee dowladda ay u baahan tahay inay bulshadeeda u gudato. taas waa inoo labaysaa, waana arrinta u muhiimsan oo dhinac socota doorashada. saad la socotaan caqabado badan ayaan ka soo gudubnay. maanta waxaan ra'iisul wasaare ahay 11 bilood oo dhiman 6 maalmood. 17 Sebtembar aad maqashaan alla i doorta aniga alla i magacaabay. waxaan ku dhaartay inaan fuliyo wixii lii magacaabay 17 Sebtembar ee ahaa doorasho dadban oo ay ku heshiiyeen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. alxamdulilaah. maanta doorashadii waa ay socotaa. sanadkii waa uu bilowday, nus ayuu marayaa. hal maamul iyo dowlad goboleedyo iyo ayaa noo haray, laakiin waxaan rajaynayaa 2 beri ama 3 beri oo soo socoto inay ka wada faraxashaan sanadka. kadibna aan u gudubno oo aan kulanno, aan isugu imaano meeshii aan ku heshiinay. hadda xamar aan noo ballansanayd inaan wiiga soo socdo aan ku kulanno, kadibna aan diyaarino qorshihii aqalka hoose ama baarlamaanka, xubnihii baarlamaanka sidii loo diyaarin lahaa ay doorasho u geli lahaayeen aan ku wada heshiino. waana iswada ogol iyo is-aaminaad iyo isla socod ayaanu ku heshiinay. dhib dheer kadib markii la soo maray 27 May heshiiskaas wuxuu dhigayay inaan aniga iyaga ii idmadeen aan hogaamiyo 5 dowlad goboleed iyo gobolka Banaadirba inay doorashadu ay ku socoto hab isla socda, isfahama, iswalaalaysi sidii aan ku wadnaa dhammaanteen. insha allah ninkii hadday su'aali weydiiyaa jiro maxay doorashada loo dadejin la'yahay, waxaan ku wadnaa xilli adaga la soo maray. hadda xilligii maaha 2016 hadda waxaa lagu jiraa 2021. caqabadaa dhacay, dhibaatooyinaa dhacay, waxbaa la kala tirsaday. dalka xaalad adag ayuu qarku u saarmay oo ah in civil war ama dagaal sokeeye dib loogu noqdo. saa darteed waxaan ku wadnaa isla ogolkii. hal qof kuma degdegayo, 2 qof kuma degdegayso. waa in laisla socdaa oo laisla ogolaadaa, waxna heshiis lagu yahay. sidaasaan ku wadnaa. waxa marka daahinta keenayna waa taas. midda kaloo dhinac socotana waa dhaqaalihii doorashada. saad la socotaan doorashadan waa ka duwan tahay doorashadii hore. degmooyinka halay ahayd 2016 hadda waa 2. dadka gudiyada wax dooranaya waxay ahaan jireen 51, maanta waa 101. marka wax kasta waxay noqdeen laab soo maahan. marka waxaa loo baahan yahay taxadar iyo in si miisaaman looga fikiro dhaqaalaha ku baxayo. lacag waxaan ku qiyaasnay 26 milyan ah, weli inteeda badan nooma soo xaroonin.
hadda 7 milyan iyo annaga dhinacayna qayb ka imaanayso ayaa diyaarinay inta kalena markaan isku imaano oo aan ku heshiino qaybtii labaad ee baarlamaanka ayaan iyadana war ka soo saaraynaa sidaan hore ugu sii socon lahayn laakiin dhammaanteen way naga wada go'an tahay waxaa soo hartay wada shaqaynta xukuumadda iyo madaxdeeda waxaa la yidhahdaa doqoni meeshii lagu dagaashay ogeeday meeshii lagu heshiiyey moogo waa heshiisaan nahay dalkaas haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas qarow ka sii dhacaya aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada soconno si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro dhammaanteenna dalkaas ayaan u shaqaynaa dalkaas ayaa naga weyn waxyaabaha aniga ay asxaabta saaxiibada ee dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha igu aamineen ayaan rabaa horena loo sheegay wasiir cadaaladna hore u sheegay oo ah maadaama doorashadii la ii dhiibay oo mas-uuliyaddeedii madaxweynaha igu wareejiyey dowlad goboleedyadana ay ku qanceen waxaan istusay kursigaas waa hal kursi soo maahan waxaan ka soo qaaday xabad rooti ah xabaddaas rootiga ah haddaan wax ka damco musuq maasuqeediina waa damcayaa dhaceediina waa damcayaa xaaladdu uu dalka soo mar haddii caadi ahaan lahayd oo 2016 ahaan lahaydna waa waxba isku dayi lahaa laakiin markaan arkay xaaladda uu dalka soo maray la tashina la sameeyay saaxiibaday waxaan go'aansaday dalka inaan u naxo oo aan caqabadan ka gudbiyo kursi waxa ka qiimo badanna ay tahay dalkaygu noo badbaado dhammaanteen marka saa darteed ayaa waxaa ii soo baxday inaan yeesho maskax fiyow caqli fiyow iyo iimaan haddaan laakiin kursiga damco kursigaan u jeedaya waxa geesaha ka xiga indho ma lahanaya laakiin hadda alxamdulilah ilaahay waa u mahad celinayaa waa ka fiyoobahay sidii hore waa ka fiyoobahay kii kursiga damci lahaa marka insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa doorashadan si nabada inay noogu dhacdo oo wanaagsan anigana markaas aan xor noqdo 4 sano kadibna hami waa leeyahay insha allah markaas aan soo korsay hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad siiyo cimrina uu siiyo taas waxaan kaga baxayaa marka saa darteed la socda wax caqabada ama wax iskhilaafa ma jiro warqadaheenna waad aragteen taydina waa akhriseen soo maahan cid aan taagay iyo cid aan ka soo horjeedo malahan wada shaqayntan waa waajib weyn taasaasaan uga baxayaa xiriirka Kenya iyo Soomaaliya dalkan waxaan ku noolaa 13 sano 11 biloodan ka maqanahay soo maahan waan ogahay Soomaalida ku nool dhaqaalaha naga yaallo caloosheenna waay xoolaheenna yaallo dadkeenna yaallo indhaheenna yaallo wax kasta yaallo qof arkay kaliya fahmi kare qof wadamada Yurub jooga ama wadamada kale Afrika jooga ma fahmi karo waxa halkan naga yaallo saa darteed anoo taas og ayaa waxaan go'aansaday u istaagay inaan isku dayo inaan soo celiyo xiriirkii labada dal ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkaas oo ku salaysan mid siyaasadeed mid dhaqaalo mid amni waxaan idin sheegayaa waxaan hadda u imid halkan inaan wax saxiix ah uma imaan laba reer oo daris ah aan tusaale u soo qaadanayo laba guri isku dhagan laba ciido degan yihiin markay isdagaalaan cusbada iyo ciidda iyo cusbadii saliidda may kala qaataan mise marka hore waa dhaawacii la dhayaa marka hore dhaawaca la dhayaa soo maahan aniga dhaawacii inaan dhayaan halkan u imid uma imaan cusbo iyo sokor iyo saliid inaan kala bedelano saa darteed waxaan rabaa inaad ogaataan inaan wax saxiixo halkan uma imaanin waxaan kaloo rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inaan u sheego wiilka iyo gabadha Gaarisa joogo wiilka iyo gabadha Kismaayo jooga Jigjiga jooga Muqdisho jooga Hargeysa jooga Garowe jooga Jabuuti jooga dhammaantood waxay ka midaysan yihiin Gaalkacyo iyo Hobyo jooga dhammaantood waxay ka midaysan yihiin dhulka cirka iyo badda Soomaaliyeed waa lama taabtaan maanta igama filanaysaan berrina igama filanaysaan heshiis bad oo heeg yaallo oo maxkamadda adduunka taallo
oo dhawaan aan sugayno jawaab inay ka soo baxdo ka hadalkeeda iimana bannaana mana ii bannaanaan doono jawaabtaasaan sugayna madaxweyne Uhuru saaxiibkay walaalkay saas hortiisa uga sheegay lama gamban isagoo ay hor fadhiyaan saas ugu sheegay waa lama taabtaan meeshaas ayaana jawaab ka sugaynaa laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxyaabaha saaxiibaday labadan bari alcadaala maxamed wasiirka arrimaha dibadda 4 saac iyo macallimo nafta laga qaaday say u difaacayeen war wax ma saxiixin wax ma yeelin Soomaan cid wax saxiixdo ma lahan taa ogaada cid saxiixi doontana ma lahan intaan joogana hadduu ilaahay awooddaas siiyo cid ku xadgudbaysa ma lahan wixii ilaahay naga siiyo heeg ayaan arkaynaa jawaabteeda markaas ayay u taallaa wixii ka soo baxa dawladda Soomaaliyeed oo hadda joogta ama haddii ku soo aado dawladda cusub oo dhalanayso waa hawl u taallo waxaan maqli jiray Soomaalida 100% waa muslim Soomaan markii la isqabto mid kale raba in la xumeeyo waxa la yiraahdaa murtad Soomaan markii siyaasadda la raba in la isku xumeeyo waxa la yiraahdaa baddu soo saxiixaya cid badda saxiixi karta malahan cid ku dhiiran kartana ma jirto awey ree ahlu qaad meeshaan qaad uma imaan ani waxaan u imid in guddigii la soo celiyo oo corporation-ka ahaa oo ka hadlaya labada wada qabsiga labada dal Soomaan wixii ka soo baxo ama qaad ha ku jiro ama shaqaalaha Kenyaatiga ee UN-ka xamar ka shaqeeyo faa'iidada ka helo ama iskiiladka guryaha noo dhiso ama Soomaalida idinka ku jira ka soo baxo iyagay u taallaa wixii la isdhaafsanayo guddigaas waa wax hoose wasiirada u daayay wixii ka soo baxo iyaga go'aankooda iska leh aniga wixii nabadayn ah wixii siyaasad ah xilligii haray waa gaaban yahay waa 2 bilood ama 3 bilood inuu nabad ilaahay igu dhameeyo igu soo duceeyo shalay markaan madaxweyne Uhuru la fariistay waxyaabahan ka wada hadalnay waxa kamid ah in dal isku socodka viisada la fududeeyo oo aad loo sahlo oo laga dhigo on arrival ama qofka markuu yimaado inuu helo waxyaabaha codsaday kamid ah guddiga loo saaray wixii ka soo baxo labada guddi oo Soomaaliya iyo Kenya waxa ila socdo Kofi oo ahaa taliyaha socdaalka dhigiisa waa loo ballamiyay maanta kulmayna oo malaynaya waxa ka soo baxo insha Allah khayr inay noo noqotaan rajeynaya wixii ka soo baxa ku gowracnaa cala umum waxa kaloo jirto aan u sheegay dawladda Kenya ciidankeeda wuxuu kamid yahay AMISOM Soomaan mandeeday ku joogan waxay la dagaalamayaan argagixisada saadarteed iyagoo dagaalkaas ku jiro caqabadaha dhacayo dad Soomaaliyeed ayaa dib ka soo gaaray caruur hooyo Soomaaliyeed TV waa ka daawateen Soomaan intii dhimata Allah u naxariisto intii dhaawacna Allah ka bogsiyo hanti qaran oo anteenooyinkay kamid yihiin hanti dadweyne oo anteenooyinkay kamid yihiin ayaa ku baabaa Soomaan waxaan kala ogeyn iskuulada ku baabao isbitaalada ku baabao waxa soo dhan in laga hortago ayaan ka wada hadalnay waxaan istusnay maadaama laba dawladood aan nahay ciidamada Soomaaliga ah Somali National Army iyo ciidamada Kenya oo KDF Soomaan hadday wada shaqeeyaan oo isla socdaan in dibku uu saaka yaraanayo cadawgana ila dagaalami karaan madaxweyne Uhuru wuxuu ii cadeeyay kaligiis inuu la dagaalami karin argagixisada haddayna Soomaali garab siinin oo aan laga guuleysan cid ka guuleysanaysa malahan saadarteed waa istusnay labada dhinac wuxuu si aad u hamiyay haddaan la wada dagaalano in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada Kenya ee dalkeena ka soo baxayaan iyagoo nabad qabo oo fiyo dalkooda iyo guryahoodana si nabad ugu soo noqon doonaan annagana aan awoodina la wareegi doono insha Allah waxa idin ka rabaa annaga siyaasiyiin nahay hadal ayaan wax ku farnaa laakiin ficilka idinka iska leh waxaan halkan u joognaa inaan danahiina difaacno danihiina markaan leeyahay waa mid dhaqaalaha waa mid shakhsiga ah ma rabna in cidna lagu xadgudbo ma rabno in dhaqaalaha Soomaali leedahay loo awood sheegto wax kasta waxa noo joogo safaaradeena xiriir fiican yeesha isgarabsada dhaqaale uma hayno dalka safaarada kasta ku maamulno garab istaaga safaaradiina iyadana si idin difaacdo
arrimihiina ay wax uga ogaato isgarabsada haddaadan isgarabsan cadowga ninba maalinba meel buu ku cunayaa marka isgarabsada annagana cod dheer iyo cod gaaban baa ku sheegaynaa inaan idin garab taagannahay waana meesha ugu muhiimsan soomaalida dibadda joogto waa soomaalida Kenya joogto aad ayaan u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay ogeysiis ka baxsan arrintan ogeysiis fursaday ku tahay Soomaan markaan tukanahayay ninaan isku cagnahay ayaan kabtiisa midig soo qaatay